shakhsi naftii haliga ah oo isku soo xiray walxaaq qarxa oo ku qarxay wadada dheer ee Liido xilli afur ahayd bulshada Soomaaliyeed ay u diyaar garooweysay xilliga cashada. halkaas waxa ku waxyeeloway bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka wadada Liido ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay 8 qofood waxaana ku dhintay ilaa 3 qofood oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciidanka ammaanka. dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa in goobta hadda ammaan ay tahay mana jiraan wax dhiba oo ka taagan. shakhsi kasta oo naftii haliga oo raba inuu dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeedna waxa hor istaagan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. waxaan leenahay intii ku dhimatayna sawir iyo imaan Allah naga siiyo, inta dhaawatayna Allah bogsiyo. mana jirto mas'uul ku waxyeeloobay, dhammaan mas'uuliintu ay bad qabaan. ciidanka ammaanka ee goobtaasi u bareeray inay bulshada Soomaaliyeed badbaadiyaan ayaa hor istaagay shakhsigaas rabay naftii haliga inuu si toos ah u galo hoteeladaas, balse ay ku adkaatay foojignaan dheeri ah oo ay sameeyeen ciidanka ammaanka.